صلاة واجب جماعين تكون تابانا في عنوات جماعات كحاضرته إنها ضدك برينا واجب واد حوكسته ومضوا إنها فائد صوصارته ديراد إنها صوصارته أنا ووحلو باهي هدي أينو دهنا أمضوا أردمي هورددو وردك هقادته هورددو هيه عيدنا يي حوكسيغان انت وغير لغو نولان كرون مركات سوق بطفريسو oo dadku marka ayuu cilmiga yaan dhakhtar la baran oo yaan falag la baran oo yaan xisaab la baran oo yaan handasa la baran oo yaan chemistry la baran oo yaan physics la baran waxa soo dhami waa adduunka faaniga bay ku tacalluqaan haye waxa soo dhami waa zakhrafati alhayati dunya natiijadu maxay noqonaysaa waxa soo baxaysa ummad dhamaanteed faqara ah dhamaanteed jaahilka aan nolosha adduun say u maamusho dhamaanteed bugta oo wax daweeyaan loo haynin يعني عالة على الناس ضدك كدول نول باراسايتس با سو بخايا ضد بشريه كلا كدول نول waxa loo baahan yahay wuxuu weeyaan واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم بالليل وكيف تعد هداد جهل يبقى يدن وضهيو كيف تعد هداد جهل يفقر وضهيو شاشه شوي دينته له wax weeyaan marka nooca hadii loo noolaado xanuunka faafayo cid wayse loo heli maayo jahliga faafayo cid nolosha horu maraysa la heli maayo nolosha dhan baa aasmaysa muslimiintii hore waxay caanka ku ahaayeen ee dadkani sida qaldan u fahmay waa hal mas'ale bal mas'alada u dhigtaaga waxay ahaayeen wax soo saar dadka ugu badan waxay kala ahaayeen istihlaak dadka ugu yar labada mas'ale ma isla fahmi karaysaa waxay ahaayeen wax soo saar dadka ugu badan shaqo la qabto dad shaqeeyo aan aqoonin caajiska ee wax soo saara laakiin marka ay noqoto ku raaxaysigeeda waxay ahaayeen dadka ugu yar isagoo milyaneera ayuu hadduu hilib yaroo shiilan cunayso odhan jiray armaa kani kii aakhiro ku weydaariya idan may ahayn wax la'aan ee waxa iyadoo gacantooda ku jirtaanay qiimo badan u sameynaynin innaga laba mushkila meesha taala dad bad yiri aakhiran ku soconna adduunkaba uma baahnin dabeetana gaal ku hoos noolaaday iyo in aakhiraba ilowday oo tiri adduunyan raadacaynayna dabeetana adduunkan iska bidbidsanayna meelaha dulduul oo kolba siyaaxad iyo daar yar cagaaran iyo inta noloshaba inta moodo aakhira ilowday laakiin labadaba cagsigooda ay hayeen saxaabadii nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa hayeen wax soo saar marka la tago dadka ugu juhdiga badan le muntajiina markay noqoto conceptionna waxa hayeen dadka ugu yar wahada huwa zuhd la sheegayana marka zuhdiga xaqiiqigiina waa ka culama alhadith rakamida oo waaweyn oo salafkiyaba waxay oran jireen nin kamidaba wuxuu yiri ardadiisa isagoo la dardaarmaya waryaadeen anigu walaalahay baan ku kornoolo wax la cunaa buu yiri idinka waxaan idin kula talinay inay xoogsataan buu leeyahay inta yartiin xoolo dhaqda waa nin muhaddisiinta waaweyn ee la yaqaan kamida muhaddisiintu waxay caayi jireen ninka dawladda lacag ka qaata ama se xadiidka ku xoogsada muhaddisiinta qaar baa jiray aan lacag ba haysanin deetana waxay oran jireen idin sheegmayna xadiidka idinka waxna siiyo mooyaane marka lacag la siiyay inay xadiidka sheegi jireen marka ahlul xadiidku markay ka waramayaan ragay maagaan bay ku jiraan oo yiraahdaan xadiidkoodii bay ku xoogsadeen idan waxay nici jireen xataa inay diintu wadiifo ka noqoto wala professor banahay wala ustaad banahay wala waxa kan banahay malihi ma banaana laakiin waxa aan tilmaamaya iyaga aragtidooda waxay ahayd inuu wixiisana xoogsado cidina aanay u manna sheegan marka la dawlad wala shicib wala qofna aanu u manna sheegan isagoo gacantiisa wixiisa ku haysta inuu isagu wax sheega hadana isagoo inuu dadka u manna sheegto cilmigiisa oo aakhira iyo ajar ku helo mu'minka xaq ah marka waxa weeyaan waa adduunka ka intaajkiisa iyo wax soo saarkiisa uu ugu sareeyo istihlaagiisa iyo qooqiisuna uu ugu yar yahay oo hadaa see la oranaya xoolaha badan la shaqeynaya islaamkiisa iyo diintiisa iyo dadnimadiisa ku horumarinaya masaajidaynu maanta raadacaynayna waxaynu dhisaynu laana waayo waxaynu soo saarayba waynu cunno ama muntajiin baynan ahayn
ama mustahlikiin baynu nahay labadubana waa waxaan fiicnayn muntij noqo mustahlikna ha noqonin wax soo saar waxna hay si aad nolosha u barbaariso u horumariso westernkaynu maanta joogna carruurteenna islamic school baynu u laanahay maxaynu ugu weynay ama waxba inaan soo saarin oo caydha aynugu fillaatay ama wixii aynu soo saaraynu liqnayo waa la boobna labada goorba waa khasaaraynu taaganay marka waxaynu u baahanay marka noloshu say u horumarto faa'idkan baa loo baahanyay waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimi ee masaajidka dhisay saxaabadiisii wuxuu tusay inay suuqa galaan oo meelaha xoogsadaan suuqu nebigu u dirayay yaa lahaa yuhuud baa lahayd yuhuuddaa la booba nolosha la xoogsada la lahaa meeshuu lahaa cabdiraxmaan ibnu cawf dulluna cala suuq waa suuq lyahuud suuqi banu qaynuqaac baa la geeyey meel kale lama geynin waxaan rabaa marka dariska macnihiisu wuxuu ku kooban yahay cinwaankii la ii dhiibay wuxuu ahaa calaaqati dunya bilaakhira adduunku aakhiro xidhiidhku la leeyahy waa maxay xidhiidhku la leeyahy waxa weeyaan xiska qofka muslimka ee dhabta ah adduunku waa dariiqii aakhiro loo marayey hadday cibaado tahay noloshoo dhan buu cibaado u arkaa xoogsiga xalaasha ahi cibaadadu ka mid yihi marka dambe ilaahay dartii loo bixiyana cibaadadu ka mid yihi kafaafka aada noloshaada adigu daberi kartaa cibaadaday ka mid tahay baryadoo aad iska dayso aan sooshiyaal wax weydiisanin cibaadaday ka mid tahay inaad isku fillataa cibaadaday ka mid tahay qofka muslimkii inuu noqdo moodhal lagu daydo cibaadaday ka mid tahay qudwa xasana inaad noqotaa cibaadaday ka mid tahay in marka tusaale lasoo qaadanayo aad adigu noqoto qofka moodhalka xumaha loo qaatee caydha ku nooli diinyariday ka mid tahay diinyariday ka mid tahay bal dadkii aan rabay inaynu moodhal u noqonno hadday iyagii adiga ku yasaan waa diinyari haddaynu inagu noqonno dadkaba dadka diinta ka hor taagan idan waxa aan rabaa inaynu u fahmno waxa weeyaan adduunka ha jeclaanin gacantaada ha galo laakiin yuu qalbigaaga gelin adduunkuna ha noqdo ariiq aakhire lagu gaadho wallahu aclamu billahi tawfiiq wasalaamu calaykum